kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyay xiliyadan oo kale bogeena YouTube-ka aad ka daawan jirteen. Qodobada aan idinkugu hayana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Soomaaliya oo cadeeyay mowqifkiisa xiisada magaalada Laascaanood iyo qorshaha isimada SSC oo ku sugan magaalada Muqdisho. mooshin muddo kororsi oo la horgeenayo xildhibaanada golaha shacabka iyo fulinta qorshihii Villa Soomaaliya oo durba bilowday. maxaa ka jira in madaxweyne xasan sheekh ka tala diiday xubnaha ku dhow ka hor heshiiskii doorashooyinka ee dhawaan lagu gaaray Villa Soomaaliya. waxaan idiin soo gudbin doonaa xogta sababta madaxweyne xasan sheekh go'aankaasi uu gaaray iyo qodobo kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaan barnaamijkeena daawada idinkugu haya. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ta daawada hanaga ilaabin gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino. dhammaantiin waa ku mahadsantihiin daawashada wararka aynu ku bilowno wararkeena. daawadayaal aan ku horeeyay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka laga soo doortay dowlad goboleedka Puntland ayaa u ololeynaya in liis argagixiso lagu daro Somaliland sida aan ku helnay warbixino la isku halayn karo. xubnahan ayaa waxay dooda ugu weyn ay cuskanayaan qorshahan ay ku rabaan in Somaliland lagu daro liiska argagixisada ku saleynayaan duulaanka ay Somaliland ku qaaday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. xubnahan waxay isugu jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo xubnaha golaha sharci dejinta maamulka Puntland. sida laga soo xigtay xildhibaano ka tirsan kuwa arintan ku howlan waxay qorsheynayaan in soo jeedinta ka dhanka ah Somaliland la horgeeyo fadhiga baarlamaanka Puntland oo furmaya bartamaha bishan aynu ku guda jirnay June. waxaana dadaaladan geed fadhi u ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee laga soo doortay Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Sool. waxaana ay doonayaan in culayska lagu kordhiyo maamulka madaxweyne Biixi xilli loo marayo xubnaha sharci dejinta maamulka Puntland. muuse Biixi iyo maleeshiyaadkiisu hadda waa buuxiyeen dhammaan shuruudihii lagu noqon lahaa argagixiso sida uu Laascaanoodba ka sameeyay ee falalka bahalnimada ah, ayuu yiri xildhibaan qariyay magaciisa oo ka mid ah kuwa wada qorshahan liiska argagixisada loogu darayo maamulka Somaliland. sida warbixinada kale lagu helay xubnaha laga soo doortay SSC ee dowladda federaalka ah iyo kuwa ka yimid gobolada kale ee Puntland oo lagu daray xubno ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa si weyn ugu ololeynaya tallaabadani. Somaliland iyo bulshada reer SSC ayaa si weyn u kala fogaaday tan iyo markii uu qaraxay dagaalka magaalada Laascaanood kaas oo qaatay bilooyin dhowr ah uuna ka dhashay khasaare xoogan oo isugu jira mid hantiyadeed iyo mid nafeed. arrintan oo si hoose ku socota ayuu qorshuhu yahay in la horgeeyo furitaanka baarlamaanka Puntland, waxaana inta badan go'aanada ka soo baxa golaha sharci dejinta ee maamulka Puntland wax badan oo ka bedeli karaa dhacdooyinka ka socda deegaanada SSC gaar ahaan dagaalada u dhaxeeya Somaliland iyo dadka deegaanka ee gobolka Sool. arrintan ayaa imaanaysa xilli xukuumadda madaxweyne Biixi ay wajahayso culaysyo waaweyn oo xagga ciidanka ah iyo culaysyo diblomaasiyadeed oo caalami ah kuwaas oo dhammaantood isbarkaday tan iyo markii uu bilowday dagaalka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. waa hagaag waxyaabaha soo kordha wararkeena kale ayaan daawada kugu soo gudbin doonaa. markana warbixinadeena kale ayaan daawada sii aadaya. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay mar kale tan si weyn u difaacay heshiiskii dhawaan uu la gaaray madaxda maamul goboleedyada. waxaa sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo hadal qaaday qorshaha isimada dhaqanka ee SSC ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyo sidoo kale doorashooyinka Puntland. madaxweynaha ayaa marka hore si weyn u difaacay heshiiskii golahooda tashiga qaran oo ay dhawaan ku gaareen magaalada Muqdisho, isagoo oo sheegay in la joogo waqti aan laga laaban karin maadaama aysan Soomaaliya u furnayn fursad kale oo ay uga guuri karto halka iminka taagan tahay. wuxuu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay qaateen go'aan geesinimo iyo mas'uuliyad leh talada dalkana dib loogu soo celinayo dadka si taas loo gaarana ay heshiiskan u soo saareen, isagoo aad u sharaxay duruufaha dalka xilligan ku gadaaman iyo sida ay tahay in looga gudbo. madaxweyne xasan sheekh ayaa dul istaagay sababaha keenay in muddo ka badan 20 sano aysan dhismin dowladnimada Soomaaliya in ay tahay dastuurka qabyada ah
iyo talooyinka kusoo dhammaada isla markaana muhiim ay tahay Soomaaliya inay aado doorashada xisbiyada oo xisbigii aqlabiyada dalka hela uu hogaamiyo iyadoo aan lagu furi karin doodo siyaasadeed iyo sidoo kaleeto diidmooyin saameyn kara. madaxweyne xasan sheekh ayaa difaacay sababta ay ugu heshiiyeen in laba xisbi oo kaliya dalka laga dhaqan geliyo isagoo tusaalooyin u soo qaatay wadamo badan oo ay ka jiraan xisbiyo badan oo marka doorashooyin la gaaro talada dalku ay bahdo isla markaana ay adkaato in hal xisbi uu helo aqlabiyada dalka taas oo sababta in xukuumadahaasi isdaba joog ah loo rido. waxauna tilmaamay sababta Soomaaliya u dhaqaaqi laadahay inay tahay mooshinada isdaba jooga ah iyo xukuumadaha isbedelaya. haddii la helo hal xisbi oo aqlabiyada dalka ku guuleystana waxaa rajo wanaagsan uu ka muujiyay horumar baahsan in Soomaaliya ay gaari doonto. dhanka kale madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday qorshaha isimada dhaqanka SSC ay u yimaadeen magaalada Muqdisho isagoo tilmaamay in la tashiyo ay la sameyn doonaan kadibna dowladda federaalku go'aan ay qaadan doonto. madaxweynaha dalka ayaa dadka reer Muqdisho ka codsaday in ay isimada si diiran u soo dhaweeyaan isagoo tilmaamay dowladdu doorkeeda inay qaadanayso. waxaynu la yimaadeen talo waan ka dhageysan doonaa wixii dowladnimada Soomaaliya ay ka qabto ayaan ka dhihi doonaa markastaahi waxaan ka talin doonaa nabad iyo in aan dhiig Soomaaliyeed daadan ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa kale uu yiri madaxweyne Xasan Sheekh waxaan ka talin doonaa in qof Soomaaliyeed uusan taladiisa waayin oo uusan dulmi dareemin. Abdiraxmaan baa wuxuu igu yiri warqolida taacsiyaad waa leedahay xamanaya dagaalkana waa ku jirtaan ragna waa idin kaga dhintay saanku mid baa hadda Hargeysa dhaawac ugu dhintay marka waxaan ku yiri dagaalka laba ardaayo Ciise Maxamuud iyo waxa isdhac dagaalay Xasan Ugaas waxa way xaqana waa laga soo gurmaday waxa way maxkamadda hartigu waxay Umar Maxamuud iyo Cismaan Maxamuud ku xukuntaanana lagu xukumaya. madaxweyne ku-xigeenkii hore golaha xukuumadda gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad baarlamaanka wasiirada heer federaal salaadiinta sharafta badan uqaasha guurtida ningarboodka haweenkeena sharafta badan saraakiisha ciidamada oo halkan jooga iyo dhammaan shacabweynaha halkan isugu yimi dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi ilaahay baa mahad iska leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin inaynu maanta oo jimco ah harin wanaag isugu nimaadno inagoo qoys ah oo ka hadlayna dhibkii inagu dhacay ee ilaahay qadaray ee shaydaanku ka shaqeeyey inagoo ka hadlayna nabadeedii inaynu halkan isugu nimaadno waa wax ilaahay loogu xamdinaqa wey. colaad isu sheegi mayno waxay tahay waynu garanaynaa nabadgelyadu waxay tahayna waynu garanaynaa. dhibka halkaa ka dhacay horta ilaahay baa qadaray ilaahay baana gartay wax ilaahay qorayna ma joojin karno. haddaanu awood u leenahay oo aanu naloo sii sheegi lahayn saa wax u dhacayaana dee awooddaa ma lihina waynu ka hortegi lahay. annagoo ka nimi magaalada Badhan baanu subax habeenkii soo galay Garoowe subaxnimadii halkaa waxaanu ku kulannay guddigii isxaqaan iyo salaadiintii annagoo ah waxaanu isla qaadanay in aanu biri aroortii waa maalintii wax dhacayeen maalintii ka horreysay in aanu tagno halkaa oo nabadda cunaha qabanno oo macasha qabanno oo hawsha aanu galno. salaadiin badanna Badhan baanu ku soo ballannay. maalintaas waxaa taagnayd oo aanu naloo soo sheegay annagoo diyaar u ah in hawshii iyo goori ka jirtay qaybteedii dhabardalool oo ugu cuslayd oo aad ogeydeen ragga ku dhintay in la soo afjarayo oo xafladeedii koowaad la qabanayo. break baanu kala qaadanay waxaanu niri maalintaa iyo goori baan anna aadayaa wayna dhaaftay maalintaasi subaxaasaa damba wayno iyo waxa weeye sacmeegaag baanu guddigii isxilqaan islaankana galinkii dambe ayaa warkan la gaarsiiyey iyo suldaankaba wax iyagoo waxaanu ku ballansanay inaanu halkaa isugu nimaadno
oo hawsha aanu dib nabadgelyada uga talino nasiib wanaag ama nasiib darro annagoo soo soconnaa oo markaa tukarag agteeda marayna oo sooba jarmaadnay ayaa naloo sheegay in dagaalkii uu socdo oo ay xabaddii bilaamatay haddii aanu boocama nimina waanu ka gudubnay waa isku daynay inaannu xabaddaa joojinno rag anigii la socday waaba ku dhinteen ragna waaba ku dhaawacmeen annagii baa khatar gallay wax ilaahay qorayna way ahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa intii halkaa ku dhimatay ilaahay waxa weeye inuu naxariistii janno siiyo intii ku dhaawacatayna ilaahay u boogadhayo dee qur-aankana waa lagu sheegayoo dad islaam oo isdilaya culimmadii baa sheegtay oo inoo dhammaysayo dee ilaahay baynu u baryaynaa waxaan runtii aan uga mahad celinayaa madaxweyne ku-xigeenka ana kusimaha madaxweynaha hawshaa uu iska xil saaray ee aan isugu nimisan ka jebiyey isagoo jabhada anugu waan aqaanaa ee dhowrka cishana uu haddaa halkaa u fadhiyey runtii wax weyn bay tartay waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa beelaweynta leelkase oo cuqaaliya guurti noogu yimi boocame garowana soo maray nabadda ay raadinayeenna uga mahad celinaynaa beelihii kale yuusuf daarood iyo waxa weeye raggii halkan ka hadlay ee suldaan siciid guuleed sayare kaskii qabay raggii lahaa iyo in allaaliintii nabaddaas maanta halkan u timi ee doonaysaa inay nabadda ka shaqaysana iyana waa u mahad celinaya madaxweyne ku-xigeenka mar labaad waa u mahad celinaya laa shukr calaa waajibsa iyo guleysa wasiirada intaa haddii aan ka gudbo waxaa weeye labadii beelood ee halkaa de waynu ognahayoo haddaynu hartinahay reeraha siyaalo kalaa la isugu xantaayo xasan ugaas iyo ciise maxamuud waa la isku xaman jiray laba qoys oo wada dhashay oo isku deegaana oo wiil iyo abtigooda oo waxba kala lahayn bay ahaayeen haddeerna waa yihiin dhibkaa yaree dhex marayna annagu waxaaba jecelnahay in iyagu ay dhammaystaan laakiin mar haddii xukuumaddii puntland ay soo gashay waxgaradkii daaroodno isugu yimi hawshaasi insha allah way dhammaanaysaa go-aankaa labada beelood ay ku dhawaaqeen ee xabajoojinta ah ee ay gacmaha iyo lugahaba u taageen ay golahaas waxaa weeye maanta har wanaag kaga dhawaaqeen oo yidhahda xabajoojin waa ku dhawaaqnay ciidamada in la kala rarana waa ku dhawaaqnay waxa weeye boonkaana ay qaateen haddaanu dhaqanka nahay waanu ku daba joogaynaa waanu ku ilaalinaynaa ciddii heshiiskaa ka baxdana waxaa weeye waa la arki doonaa ganaaxeedana waa la kulmaysaa xaliimo cali biyood aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya iyo haweenka ilaa iyo maalintii arkay nabadna waa ka shaqaynayeen de hawsha inta ugu badanna haddaad xaliimay og tahay haddaad og tihiinba xaggiinay ka timaadaa waayo waxaa weeye maanta harti waxba isu qarin maayo inkastoo hadalku dambayn doono waxa meesha kimis ordaysa waxa caana ordaya iyo waxa garowa laga sheekaynayo midiyo lala ordayo iyo dumar qaylinaya deena waxa weeye waa jiraan oo idinka laftiguna dib u shirtaan oo muusanowga ugu badan dumarka xaggoodu ka socdaa waayo waxaan garanayaa nin dhaawaca iyo nin meydaba gacanteeda soo galay aniga iyo waaska wallaahi dumarkaanu kala cararaynay bilaahi tallaahi waanu xaga kala soo wareegnay oo aanu waxa weeyaan ku soo gudbinay idinka laftigiina dib isugu noqda kuwa garowa joogana waa garanayna kuwa laascaano joogana waa garanayna dumar badan oo nabadgelyo ka shaqeeyana waa jiraan laakiin ficilka ugu badani iyo markaad baraha bulshada eegto dumarka inta ugu badan kacdoonka wada dibna idinku isugu noqda xukuumadda waxaan leeyahay qodobka aad ha loogu fiirsado nabad baynu ku dhawaaqnay xabajoojin baynu ku dhawaaqnay haddaan haddeer ciidan meeshii loo dirin now just now